مدحويني وأصلا صوت ديارة وتوقف ترسل إيه قرأت مرة سوالن يقول لك سناك ما مدحويني زرو maanta waa maalin qaran oo taariikhi ah oo ku suntanaan doonta maalmaha yididiilada iyo rajada u leh qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa si rasmi ah u soo gaadhay magaalada Ceerigaabo si uu u soo gabagabeeyo ama u soo xidho shirka nabadda Ceerigaabo oo muddo dhowr wiiga ka socday magaalada Ceerigaabo. Shirkaas oo ujeedadiisu tahay in la xoojiyo nabadda, isu soo dhawaanshaha, walaalnimada iyo midnimada ummadda Soomaaliland guud ahaan gaar ahaanna bulshada wada degta magaalada Ceerigaabo. safarka madaxweynuhu maanta ku yimid magaalada Ceerigaabo ma aha socdaal caadi ah, waa safar qaran oo xambaarsan ergo nabadeed iyo kalgacal walaaltinimo, waana arrin tusaale cad u ah sida uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa ay uga go'an tahay ilaalinta nabadda wadajirka ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, maadaama nabaddu ay tahay saldhigga uu ku dhisan yahay qarankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii xilka loo dhaariyay 12 bishii 12aad 2024 ayuu ku dhawaaqay gogol nabadeed oo bilaa shuruud ah. maalintaas oo khamiis ahayd, sabtidii oo ahayd markii ugu horeysay oo madaxweynuhu ku fadhiistay xafiiskiisa fadhiistana mar labaad buu ku celiyay gogoshii nabadeed ee bilaa shuruud ahayd. taaynu maanta maxsuulkeeda u joogno iyo inuu madaxweynuhu soo gabagabeeyo halkaas ay ka soo bilaabantay. madaxweynuhuna wali wuxuu ku taagan yahay ballanqaadkiisii ay ahayd in meel kasta oo colaadi ka jirto Jamhuuriyadda Soomaaliland wada hadal, isu tanaasul iyo walaaltinimo lagu xaliyo. madaxweynuhu wuxuu halkan u yimid si uu u muujiyo in nabaddu aanay ahayn ereyo afka laga yiraahdo, balse ay u baahan tahay ficil iyo ku dhac dhab ah oo uu hogaamiyuhu ku hogaamiyo bulshadiisa dariiqa saxda ah. imaanshaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Ceerigaabo waa arrin si dhab ah uga tarjumaysa daacadnimada, dulqaadka iyo aragti qaran oo fog, taasi oo lagu dhisayo kalsoonida, dib u heshiisiinta iyo walaalaynta bulshada reer Ceerigaabo. waxaa xusid mudan madaxweynuhu muddada uu joogo Ceerigaabo wuxuu kulano la yeelan doonaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, wuxuu ku hurgali doonaa xaaladaha nololeed. laakiinse waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo safarkan madaxweynuhu ku yimid Ceerigaabo waa safar nabad qaran lagu dhisayo ee kii horumarka maaha. waxaan xaqiijinayaa in madaxweynuhu haddii Ilaahay raalli ka noqdo uu ku soo noqon doono gobolka Sanaag iyo gobolka Soolba si uu u dhagax dhigo isla markaana uu magaranaysaa u shaaciyo mashaariic badan oo horumarineed oo nolosha bulshada saameyn ku leh. marka safarka maanta madaxweynuhu kaliya wuxuu ku kooban yahay inuu soo xidho, soo gabagabeeyo gogasha nabadeed. waxaa xusid mudan oo kale in gogasha nabadeed madaxweynuhu ku baaqay ee Ceerigaabo taala ay sii ooli doonto oo aan ahayn mid maalinta berri la xidhi doono. madaxweynaha safarkiisa waxaa ku wehelinayay hogaamo dhaqameedyo magac iyo maamuus weyn ku leh qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu ka mid yahay ugaaska guud ee beelaha Gadabuursi, ugaas Cabdirashiid, ugaas Rooble. waxaa kaloo madaxweynaha la socday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ahna kusimaha gudoomiyaha golaha wakiilada Siciid Giire Faarax, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida Axmed Maxamed Cabdi, wasiirka duulista hawada Fuaad Axmed Nuux, wasiirka beeraha Maxamuud Cige Yuusuf, wasiirka macdanta iyo tamarta Axmed Jaamac Barre,
wasiirka dib u dejinta iyo arrimaha bini'aadanimada la taliyaha arrimaha amniga ee madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Ismaaciil Aadan Cismaan gudoomiyaha guddida nabadda jamhuuriyadda Somaliland Cabdulqaadir Jirdaaw Cali iyo madaxda ka tirsan xafiiska madaxweynaha madaxweynuhu wuxuu si kal iyo laaba ugu bogaadinaya isla markaana ugu mahadnaqayaan dhammaan bulshaweynta Ceerigaabo iyo agagaarkeeda iyo gobolka Sanaag sida qiimaha iyo qaayaha leh ee madaxweynaha u soo dhaweeyeen madaxweynuhu maalmaha uu halkan ku sugan yahay si dhab ah ugu fuurgali doonaa arrimaha u saldhigga inay nabaddu hana qaado in ummaddu ay isweheshirto inay walaaltinimadu halkii ka sii socoto oo ay soo noqoto maadaama magaalada Ceerigaabo ay taariikh qiimo badan ku leedahay jamhuuriyadda Somaliland oo ay tahay hoyga nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada jamhuuriyadda Somaliland kala duwan madaxweynuhu berrito ayuu mataqaan biidmillaahi tacaala si rasmi ah u soo xidhi doonaa waxa kale oo aan jecelahay halkan inaan magaranaysa ka iclaamiyo in suldaanka guud ee beeraha wasalgeli suldaan Siciid suldaan Cabdisalaan uu isna magaalada Ceerigaabo magaalada madaxda gobolka Sanaag uu maanta yimid si aad iyo aad u ballaaran loo soo dhaweeyay suldaanku waa suldaan qaran oo ku suntan nabadgelyada iyo wada noolaanshaha bulshada reer Sanaag gaar ahaan degmada Ceerigaabo si weyn ayaa aadna loogu soo dhaweeyay suldaankuna waan ku mahadnaqaynaa imaanshaha iyo qaybta uu ka yahay nabadgelyada